nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saacad baa ku jirta aanu waafaqin qof muslimi isagoo taaganoo tukanaya oo ilaahay wax weydiista ilaa iyo ilaahay waa siinaya oo waa saacadee culimmadu laba xadiis ay soo arooriyaan laba meeloodba oo ku tilmaamaa jumcada markuu mimbarku imaamku saaran yahay ilaa iyo intuu salaada ka baxaya waxaa kaloo la tilmaamaa wakhtigan aynu hadda joogno jumcada casarka dabadii ilaa iyo ay ka dhacayso saacad ku jirta waana wakhtiyada dikriga ugu fiican qofku inuu wardiyo bacda salaati subx haddaad fadhiisato oo wardidid ilaa cadceeddu kaaga soo baxdo oo aad laba ragcadood tukatid wuxuu nebigu ku tilmaamaya inay tahay maxay xajatun taama buu nebigu ku celiyay waa xaj dhammaystiran baa la yidhi adoo hadda masaajidka iska fadhiyaad yeelatay xaj bacda alcasarna isna waa wakhtiga fadliga badan leh haddaad weliba casar jimce hadduu noqdo saacatulijaabahay culammadu sheegayeen baa ku jira walidaalika waxaynu leenahay azminada faadilka ah ramadaan oo dhan baa ku jirta in laga faa'iidaysto jimcayaasha ramadaan baa ku jira in laga faa'iidaysto bacda salaati subax baa ku jirta in laga faa'iidaysto ثuluثu leyl alakhiir baa ku jira in laga faa'iidaysto qiyaamu leyl baa ku jira in laga faa'iidaysto leylat اlqadri baa ku jirta in laga faa'iidaysto cashar alawaakhir baa ku jira in laga faa'iidaysto waxaasoo dhanna waxaa lagu wada tilmaamaya ama xaj taama ama cimro u dhiganta xajkii nebi maxamed mid lala xajay u dhiganta ama dembi la dhaafay ayaa ku soo wada arooray ama baryo la aqbalay idan awqaadka faadilka ee nebigu tilmaamay maalinta carafaa ka mida awqaadda faadilka ee nebigu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mida labada aadaan inta u dhaxaysa markuu mu'adinku aadimo ilaa iyo iqaamada inta u dhaxaysa iyaduna waa waqti adducaau laa yurad bayna alaadaanayn aw bayna alaadaani waliqaama fadcu nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu axmedba soo saareen sheekh albaanina saxiix ku tilmaamayo ducada lama celiyo labada aadaan dhexdooda labada aadaan waa iqaamada iyo aadaanka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حديث كان وحو كلو شيء نبي بريضينا لعلن أما يرتا انت لعليا مركا آذان كله إيا مركا جهاد كالوجه وحكى له كم إذا وقت يد الدعاء أي في عنتها صلاة الدبديت صلاة الدبديت lababa culamadu